khalaas caruurtayda waxaan ugu sheekayn doonaa cidda kubadda cagta ka ahayd tooraha iyo laadarka waxaana dhihi doonaa waxaa jira nin la dhaho Ronaldo wuxuu ahaa kan ugu goolasha badan dunida kubadda cagta sidoo kale wuxuu ku guuleystay 5 Champions League iyo 5 Ballon d'Or wuxuuna ahaa kii ugu horeeyay ee 100 gool ansixiya Champions League-ha kii ugu horeeyay ee 50 gool ansixiya kulamada gudbaxa kii ugu horeeyay ee 6 kulan ee guruubyada goolal ansixiya kii ugu horeeyay ee 3 kulan oo xiriir ah hat-trick dhaliya laakiin sidaas oo ay tahay wuxuu ka ahaa filinkan laadar waxaana jiray mid kale soo dhawaada hal mar aniga ayaa idinkaga sheekayn doono waxa lagu magacaabaa Leo wuxuu ka yimaaday America wuxuuna u soo qaxay Yurub halkaas oo uu ka noqday midka ugu fiican dunida gidaaradu waxa uu adag midka shubka ah Messi ma jirin xilligiisa mid ka shubsan oo hor istaagi kara isaga way adkeed in ciyaartooyda laga dhaadhiciyo inuu yahay bini aadam markuu wajaho haddii ay booteeyaan ka hor ciyaarta markuu yimaado wuxuu qaadanayay waxa uu yimaday waxaad u moodeysay inuu u dhiibtay wixii uu u dhiibtayna uu ka soo doontay oo kale Messi dhamaadka waayihiisa waxa uu qaaday koobka adduun wuxuu qaaday 7 Ballon d'Or soo kale waxa uu qaaday Champions League-ha wuxuuna noqday bini aadamka kaliya ee xilli ciyaareed gudihiisa ansixiyay 91 gool haddaba waa kan fiican Ronaldo mise Messi in nugula wadaag qaybta aragtida dadweynaha